caruur yar yara waa ay xanuunsanayaan mana garanayaan halka laga hayo iyo meesha looga yimid balse hooyooyinkood ayaa dareemaya dhibaatada uu ku hayo xanuunka soo wajahay caruurtooda. goobtan oo ku taala kaamka Jowle ee Garowe oo aan booqday waa goob la isugu keenay in ka badan 200 oo naafa ah oo isugu jira dadka deegaanka iyo barakacyaasha ka soo cararay gobolada Soomaaliya ee colaad wali ay ka jirto. waa goob lagu kulmiyay murugo iyo walaac wada socda guud ahaan dareen gaar ah ay ku reebaysaa qofkii booqda halkan oo ah adduun kale oo ku yaala Garowe. dadka naafada ee halkan la isugu keenay waxay u badan yihiin ubaxi dalka waana caruur ka soo kala jeeda qoysas dan yar ah daada ay jiraan iyo muuqaalkooda guud ayaa aad u kala fog waxaana hagaasiyay xanuunka iyo daryeelkooda nololeed oo aad u liita. qoysaskooda qaarkood waxaa ku adag maareynta noloshooda oo waxay la dagaalamayaan quutal daruuriga maalinlaha ah oo mar ay helaan marna waayaan. aan hadda ku hayn lahayn baanu balaanay wax dhaqtar lagu geeyay yeelkiis bi hadda aan ku quudin lahayn baana hadda haynba oo ama daawadiisa ama xafaayadihiisa ama sharaabkiisa ama caanihiisa baan hadda dib banagu waanan haynba waxaan dhaqtar ku geynaaba yeelkiis. waxa intaasi u sii dheer waalidiintood waxa ay ka walwalsan yihiin mustaqbalka caruurtooda waxa uu ku dambeyn doono. aniga oo isagoo 6 sano jira baan kala tagnay inta aniga ilmahaas la wareegay 12 sano ana tuurta ku siday haddana saxaafadda iyo caalamka iyo dawladda waxaan ka codsanayaa ilmahaas intii aan siday waa iga soo dhamaatay 12 sano jira waa arkaysaan indhihiina ku arkaysaan wixii ila daaweyn kara ama caalamka ay geeyeen ama dalka ay ila daaweyn ama meel kale ay ila daaweyn inay wax kala qabtaan baan rabaa. Axmed sida ay sheegtay hooyadiis waa 9 sano jir markuu muuqanayna waxa moodaa inuu ka yar yahay ilmaha xaaladiisa wada aragtaan walaalo hadii Ilaahay wuxuu ugu qabanaya ama muslimka Ilaahay ugu safiraya ma jirto hore cid ugu bandhigtay oo si maanta bay ka fiirtaan cimidna ma bandhigin maanta ku hor sidaasi oo jirta qaar ka mid ah waalidiintan waxa hoos u dhacay rajada ay ka qabaan in ubadkooda ay soo marayso fursad caafimaad oo ay ku hantaan naftooda. dadkan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxay dalbanayaan in la soo caawiyo si nolosha ubadkooda loo badbaadiyo. 10 ciyaal ah buu isagu ugu yaryaa cid wax ugu tartay cid wax ugu siisaa midna ma jiro hay'adna wax kama qaato islaam kalena magaalada ma tuugsantaan ba u qaatay ilaahayga ilaahay isku xiray isagana ma xoori karo anaa dhalay hadda waxaan u baahanahay saxaafadiiba hadii ay noo timi wararka iyagu meel kasta ka baahi karaan cunuga waxaan u baahanahay meesha wax lagaga qaban karo in la ila geeyo in la ila taakuleeyo in wax laga qabto dawladdu ila qabato hay'aduhu ila qabtaan maxaan ku dhahay maxalliga ah dawladda madaxweynayaasha wasiirada maxaan ku dhahay dadka dalka xukumo annaga mas'uulka naga ay wax noola qabtaan baan jeclaan lahaa. marka waxa weeyaan wax dhaqtar adigu dibad ku geeyo ama hindiyo ku geeyna ma awoodo waxaan isdalin ciyaar kale isaga marka waxa weeyaan sidaas waxaan wax iska danyara oo meelna ma garanaysaa ay geyn karin marka dhaqtarada aad yimaadayna kula warwareego deekan soo qoraan mooyaane marka waxaan ku codsanayaa dawladda iyo waxa weeyaan dadka waxa weeyaan in dadweynaha marka waxaan ku yiraahdaa ilaa hadda ma jirto ballanqaad iyo gurmad loo sameeyay dadkan waxayna qaarkood u baahan yihiin in si degdeg ah gargaar caafimaad loogu fidiyo. waa socodsoon oo idinka soo waramaya adduun kale oo ku yaala Garowe Somali Channel TV.